halkan waa bartamaha degmada Qardho ee gobolka Karkaar waana magaaladii labaad ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu maanta booqasho ku yimid dabcan sidaad arkaysaan kumanaan kun oo reer Qardhood ah ayaa halkan isugu soo baxay si ay u soo dhaweeyaan madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha intuusan soo gaarin degmadan Qardho waxa uu ku hakaday degmada Dangorayo halkaas uu dhagax dhigay waddo cusub oo laami ah oo dhismaheeda uu bilaaban doono goordhow waxaana waddadaas ay isku xiri doontaa degmada Dangorayo iyo waliba degmada Eyl madaxweynaha oo goobtaasi ka hadlana waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim mudane gudoomiye mudane madaxweyne runtii waxa sharaf weyn noo ah iyo farxad inaan maanta kala soo qayb galno iyo sida wanaagsan noo soo dhaweysaan oo aan kala soo qayb galno dhagax dhigaan jidka galaya Eyl waxa weeye waa runtii saa sheegtay markay ummad isku tashato oo isxilqaanto kalsooni dhexdooda hesho waxa yimaada horumar yaa yimaada marka waa kaaga mahadcelinayaa madaxweyne runtii wax badan yaa muuqda inta aad joogtaad qabatay oo tan aan hadda maanta dul taaganahay ay ugu dambayso waxaan leeyahay hambalyo intii aynu soo soconnay bartamaha magaalada Qardho waxaanu arkaynay kumanaan kun oo shacab ah oo taagan waddada hareeraheeda si ay u soo dhaweeyaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo haddaba degmadan Qardho ayaa ah degmada dhaqanka Soomaaliyeed waana degmo caan ku ah dhaqanka waxaana ay tahay degmo istiraatiiji ah oo 240 kilomitir ka xigta dhanka magaalada Boosaaso sidoo kalena 240 kilomitir ka xigta dhanka magaalada Garowe xarunta maamulka Puntland ugu dambeynna markii aanu nimid fagaarahan weyn ee degmada Qardho ee ah halka ay ku taalo madaxtooyada Qardho waxa uu madaxweynaha halkan kula hadlay dadkan iga dambeeya iyo waliba kuwa aad u fara badan oo dhankan midig iga jira waxa hadaladiisa kamid ahaa aad baad mahadsantihiin idinkoo saakayoo dhan taagan ee qorraxdu kulushahay soo dhaweyntiina wanaagsan oo diiran walaalayaal waxay ka turjumaysaa inaad tihiin dad dawlad jecel inaad tihiin dad dawladooda jecel inaad tihiin iyo ka turjumaysaa annagana waxaa nagu ballana inaan jaceylkaas idiin soo gudbinno oo aan dib idinkuu soo celinno oo aan idin adeegno oo aan idin shaqayno hadduu ilaahi yidhaahdo idinkuna waxaan idinka codsanaynaa inaad taageeradiinna sii wadaan oo aad garab istaagtaan dawladdiinna dawladda maxaan ku raahdaa Puntland aad garab istaagtaan madaxweynihiina aad garab istaagtaan oo aad taageertaan dawladda federaalkana aad garab istaagtaan oo aad taageertaan annagoo midah oo wada shaqaynayna yaan dalkan horumar iyo barwaaqo gaarsiin karnaa Ibrahim Umar Baafe wararka Universal magaalada Qardho gobolka Karkaar